السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وان إذن سلامي يا أصحابتك وحران channel كإلمسيدة. أوجد بيساين practical أيات ورقتي حنجلينا قص على قدري cos 0 degree معاكم هنا كسمينا على قدري cos 0 degree هدي على قدري cos 0 degree جاوبت على محاسبة سواء معي فارن آد سهلا سلهنا إنك هذا أيات مريسا وهذا واحد آد اللي بدل معها آد اللي بدل معها qaabkii ay maraysaa oo waxba kaga bedelaysid halay hay maadaama koos la sheegay hadda waxaan fiirinayaa faryartayda maxaa ka sareeya intee ka sareysa tusaale kale hadda cos 0 degree markaan fiiriyo waa isla jantuska aan ku soo laabto 0 degree waa bartani ku aadanta maxaa ka sareeya oo faryarta ka sareeya afar farood baa ka sareysa afartaas qaado wax ka sareeya aad qaadanaysaa markaa joogto cos halka waxaan leeyahay waxaan dhahayaa square root 4 divided by 2 jawaabteeduna waxay noqon doontaa 4 hadii head laga saaro 2 u qaybina jawaabtu 1 si la mid ah cos 30 ee la weydiiyay 30 waxaan fiirinayaa jadwalka aan ku soo laabanayo 30 yaa ku aadan waa fartalood imisa ka sareysa ayaan dhahayaa waxaa ka sareysa saddex farood sida daraaddeed jawaabteeda ama qaabka aan u shaqeynayo waxay noqon doontaa inaad tiraahdo square root 3 divided by 2 oo ay jawaabteeda noqon doonto isla sidii inaad ku soo celiso waxba kama qaban kartid jajab ayay noqonaysaa barteedina aad tagtaa wanaagsan waxaa lagu diray sidoo kale cos 45 waa la mid 45 waxaan leeyahay maxaa ku aadan afarta dhexe waxaa ka sareysa oo xagga sare ka xiga laba farood inta ka sareysa fiir waa laba farood waa square root 2 marka hada waxay la mid tahay square root 2 divided by 2 haddii square root laga saarana kama baxayo jajab noqonaysa barteedina ku soo celisaa wanaagsan okay halka inoogu dambeeyaan ku day doonaa warqadeena kala xigta lagu diray si la mid ah cos 6 degree 6 degree markaan joogo ku soo laabo warqadaadii 6 maxaa ka sareeya 9 kaliya hal farad ayaa ka sareysa waxaan leeyahay maadaama hal far kaliya ka sareysa waxaan dhahay square root 1 divided by 2 jawaabtana waa isla sideedii oo isbedel kuma dhacayo 1 xisaabood laga saaro taasoo bartiisa ay ku soo laabanayaan waa square root 1 hadii la dhaho wuxuu noqon doonaa 6 na u deyn kartaa hadda ka saartan wuxuu noqonayaa andhaha afan 1/2 maxaa la mid ah cos 9 degree cos 9 degree hadii lagu dhaho ka saar wuxuu noqon doonaa 9 degree waxaan leeyahay maxaa ka sareeya inta warqadeedaan ku soo laabto wax ka sareeya ma jireeda ugu geysay markan sida daraaddeed waxay noqon doontaa wax ka sareeya waxay noqonayaan inaan iraahdo square root 0 divided by 2 square root 0 wuxuu iska noqon doonaa waa 0 0 2 qayb jawaabta waa 0 hadda waxaana loo diray marka example-keena koowaad ee ku jira buugga foorka dugsiga sare ee manhajka dalka Soomaaliya find the exact value waxa uu dhaasoo ugu qiimaha saxda ah find the exact value waxa soo qaataa qiimaha saxda ah 75 marka aad qiimaha ka shaqeyso 75 dib soo qor solution dheh xalinta aad galaysaa waxaad u kala saaraysaa sin 75 oo kala saaraysaa 75 oo kala saaraysaa laba value oo kuwi aad soo qaadatay special angles kada ku xulnay hadii aan doono 25 iyo 50 dooran kara laakiin xaqlaha salaadintooda ayaa xogaa ku adkaanaysa marka laba number according to waxa soo qaato oo fiirna waxa ay noqon kartaa inaan ka dhigo sin 30 iyo sin 45 ay noqon kartaa labadaas number aan kala saarano isticmaalay formula heegi ka dhigay ana sin waxay noqon doontaa ka doonto hormarin kartaa sin 45 plus 30 degree in ka dhigaya saasay u qoraya hadda waxaan ka dhigay additional formula ayaan u ekeysiyay suspended na qora kaliya marka waxaan dhahay maxay sii noqon doontaa sin 45 plus 30 waxay noqonaysaa formula hii guud ee aan ku shaqeynayna ayaa la rabaa inaad u qorto waxaad aad weyn maaha waxaan rabaa inaan dib ku xasuusiyo laga yaabo inaad ilaawday horaynu socono marka ay additional formula ku xasuusiyo formula addition ku kan horaan soo qaadanay hadii sin a plus b la helo waxay taagan tahay sin a cos b plus cos a sin b halka ka tixraacaya halkaan jooga meelna fogna aadan ka doonin halka ka dhig marka cos a hadda waxa ku jira 45
b waxa ku jira 30 hadaa doonto 30 aad tarjumaan kartaa waxa weyn hada ma aha value yar ah ama samayn kartaa ka weyn wax waqta anyway laakiin waxa soo baxaya isku jawaab ayaa soo baxaysa say haato dhinacaad ka gasho wasla mid haro marka maadaama formula uu leeyahay sin a ana hadda waxaan ka dhigayaa sin 45 wadana formula ku xidhina cos b waxaan leeyahay marka cos b waxaan u qaadanayaa 30 plus maxay ugu xigi doona cos a bedelkeeda melbo a 45 aan ku dira cos waxaan dhahayaa 45 ay waxaan raacin doonaa sin b waxaan ku bedelayaa sin 30 okay martaasaan taaganahay waan sii soconayaa oo solutionka waxaan rabaa inaan gabagabeeyo answerkeeda ku soo saaro la socono sida aad dareemayso sin 45 markii la fiiriyo sin ayaa la sheegay ereyga sin markii la sheegay farta aad qabsatay inta ka hooseysa fiiri waay markii sin la sheegay markii cos la sheegayna farta aad qabsatay inta ka sareysa okay 45 yaa inoogu aadan haddii aad fiiriso farahan fartan dhexe ayaa ku aadan laba farood ayaa ka hooseysa laba farood waxaa qaadata isku weeri 2 oo qaybi halkaas waxaa ku haystaa sin 45 qiimo aad ku bedelnayd uma baahnid inaad jadwal ku fiiriso cos 30 ayaa joogtaa 30 waa farta labaad ay farta ku xigta markaan joogo cos 30 waxaa leeyahay farta imisa ka sareysa 3 ayaa ka sareysa halkaas waxaa kaga soo baxaya inaad tiraahdo isku weeri 2 isku weeri 3 and waa 3 farood isku weeri 3 oo loo qaybin doono 2 okay haddii aad aragto marka sin cos la socda bracketda waxay u taagan yihiin labadaas oo isku dhacsan yihiin isku dhafashay ay wadaagaan plus dheh haddana waxaa lagu sheegay cos mar walba cos lagu sheego farta aad qabsatay inta ka sareysa aad fiirinaysaa cos 45 waa farta dhexe laba ayaa ka sareysa okay maadaama ay laba ka sareyso waxaan hore ka dhahayaa bracket u samee waxaan dhahayaa isku weeri 2 waa sareysa divide by 2 haddii aad xeerkan haysato aad xifdiso weligaa ma hungooysa sin 30 ayaa ku xigta sidoo lamida sin 30 waxaan leeyahay maadaama 30 la sheegay waa farta labaad maxaa ka hooseeya 0 oo hal far ayaa ka hooseysa qaybteeda waxaan u qaadanayaa marka waa 1/2 halka marka joogto aad u baahan tahay kaliya inaad isku dhufasho ka samayso laba tiro oo xudud isku weerid ku jira waa la isku dhufan karaa oo jawaabteedu waxay noqonaysaa markaan fi isku dhufato isku weeridka labada xabo hal xabo ayaad ka soo qaadaysaa horgeelay leeyihiin 1 hadii la isku dhufto soo kornaa hadii tiro kale hal la isku dhufan lahaa 2 iyo 3 gudaha ku jira isku dhufanaysaa waxaa ka soo baxay halkaas isku weerid 6 xagga hoose soo aad 2 iyo 2 oo hooseyna isku dhacayaan haddii isku dhacaan waxaa ka soo baxaya 4 plus dheh si lamida dhankan kale soo aad isku weerid 2 haddii lagu dhufto wuxuu asal ma dulshayaa la dhahaa waxaa halkaa kaga soo baxaya soo laabanaya isku weerid 2 over xagga hoose soo aad 2 iyo 2 haddii isku dhufto waxaa kaga soo baxaya 4 mar haddii la hayo fraction ee hooseeyihiisu sameeyaa taqaana hooseeyaha siman waxaa laga qaataa hal xabo sareyahana waa la isku daraa adigoo dhahaya square root 6 plus square root 2 jawaabtaan halkaas ayay ku gaabanaysaa dib waad ugu baari kartaa waad ogaan kartaa ansarka example 1 ee buugga manhajka dalka Soomaaliya ee manhajka hadda aan barno ansarkiisu waxaa kugu qoran oo markaan hubiyey ah square root 6 plus square root 2 divide by 4 whole loo qaybiyey waan ansarka aan soo saarnay hadda sida nadiifka u soo saarnay haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe saar si share garee si asxaabta kale u arkaan subscribe-kan waxay qayb ka tahay rukumashada casharada aan soo dhigi doono oo mar walba uma baahnid inaad channel-ka soo booqato aad magaciisa soo qorto cashar walba soo gala iwan walba cusub si toos ah kugu soo dhacaya sina share garee si asxaabta kale u gaaro like saar haddii uu ku qanciyay muuqaalka aan soo dhignay unlike saar haddii uusan ku qancinin haddii waxyaabo faalo dheeri aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto oo noo sheegtana commenti ahaan noogu soo qor waad ku mahadsan tahay daawashada wacan